oo ah aaga Beit Xanuun, Beit Lahaya, Shujaaciya, sidaas oo kale bariga Rafax oo sidaan la socno ciidamada Israa'iil looga dilay boqolaal ka mid ah ciidamadooda in si fudud aysan ugu bixin. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan. barnaamijka guud ahaanba waxaan idinkula wadaagi doonaa xaaladda magaalada Gaza ka jirta. Israa'iil isku daygeeda ay ku doonayso in ay ku fashiliso heshiiskan isweydaarsiga maxaabiista. runtii sidaan la socono maanta waa maalinkii koowaad ay markaasi dadka Falastiiniyiinta muddo 2 sano kadib ay si fiican u dareemayaan nabad iyo baraaro, iyadoo la arkayay dadka Falastiiniyiinta inay dib ugu laabanayaan dhanka waqooyiga magaalada Gaza. sidaas oo kale ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay bilaabeen inay isaga baxaan qaybo badan oo ka mid ah magaalada Gaza sida lagu heshiiyey. dhanka kale waxaa soo baxaysa Israa'iil inay wax ka bedeshay heshiiskii isweydaarsiga maxaabiista oo liiskii ay horay u soo gudbisay 250 qof ee ku xukunaa xabsiyada aadka u culus ayay wax ka bedeshay. arrinkaasna barnaamijka ayaan qaybtiisa dambe ku fiirin doonaa. bal aynu ku hormarno. runtii heshiiskan maanta bilowday waxa uu dhigayaa in iska caabinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ciidamadooda ee jiidda hore jooga inay markaasi ciidamadooda kala gurtaan. ciidamada Israa'iil ayaa waxaa la arkayay maanta iyagoo kasii baxaya magaalada Gaza qaybo badan oo ka mid ah. guutada loo yaqaano 188 oo ah kuwa gaashaaman ayaa la arkayay iyagoo gawaaridooda aad ku culculus ee gaashaaman kala baxaya qaybo badan oo ka mid ah gudaha marinka Gaza. guutada loo yaqaano Golani iyo sidaas oo kale cutubka loo yaqaan ama waaxda loo yaqaano 36 ayaa iyagana la arkayay dhanka waqooyiga magaalada Gaza iyagoo ciidamadooda ka baxaya. haddaba ka bixitaanka ciidamada Israa'iil qaybo badan oo ka mid ah magaalada Gaza runtii waxay muujinaysaa in Israa'iil weli ay doonayso 53% dhulka magaalada Gaza inay ku sii sugnaato, iyadoo markaasi ku andacoonaysa in ay amnigooda ka ilaashanayaan. gaar ahaan Israa'iil waxay sheegeen inay ku sii sugnaan doonaan aaga loo yaqaano Beit Lahaya, Beit Xanuun, Shujaaciya, Rafax iyo Khan Yunis iyo dhanka bariga ah. dhanka kale marka aynu fiirino iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa iyagana waxay bilaabeen isku dabarudka sidii markaasi ay u sii dayn lahaayeen 72 saac soo socota maxaabiista la doonayo in Israa'iil ay ku wareejiyaan. oo Israa'iil liiska sida iyaga ay sheegteen 20 qof ay u aaminsan yihiin inay nool yihiin, inkastoo ay dhici karto 20kaas qof inay ka yar yihiin ama ay ka badan yihiin, laakiin Israa'iil sirdoonkooda waxay aaminsan yihiin 20 qof inay yihiin dadka nool. tirada dadka dhintana Israa'iil waxay aaminsan yihiin inay gaarayaan 28 qofood. ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada? haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culuumta shareecada. isqoristu way socotaa, fadlan hore u gaadh. wixii faahfaahina nagala soo xidhiidh +252 marka 72 saac soo socota ayaa waxaa la filayaa oo maanta laga bilaabo oo ilaa ay maalinka Isniinta ah in iska caabinta Falastiiniyiinta maxaabiista Israa'iil ay soo wareejiyaan. haddii aynu falanqeyno arrimaha istiraatiijiyadda ciidamada Israa'iil, run ahaantii ka bixitaanka ciidamada Israa'iil waxaa muuqata inay tahay isbeddel istiraatiijiyadeed oo militariga Israa'iil horay ay u sii qorsheeyeen. waxaa ka mid ah in ciidamada Israa'iil ay isku diyaariyaan mar kale haddii amar lagu siiyo in dagaalka ay bilaabaan, in maadaama hadda dhulka ay haystaan 80% uu gaarayo ilaa iyo maalinka Isniinta, haddii wejiga labaad loo sii gudbayana 53% dhulka Falastiin ee magaalada Gaza ay ku sii sugnaadaan. inay dib ay isku abaabulaan ciidamada Israa'iil oo aagaga muhiimka ahaa ee muddada 2 sano ciidamada Israa'iil ay ku rafanayeen inaysan guud ahaanba ka bixin, oo ah aaga Beit Xanuun, Beit Lahaya, Shujaaciya, sidaas oo kale bariga Rafax oo sidaan la socno ciidamada Israa'iil looga dilay boqolaal ka mid ah ciidamadooda in si fudud aysan ugu bixin, maadaama ay ku adag tahay mar kale luuqyadii iyo godadkii magaaladaas ku yaalay oo Israa'iil qaybo badan ay burburisay inay haddana mar kale iska caabinta Falastiiniyiinta ay dagaal xoogan uusan ku dhexmarin oo ciidamada Israa'iil halkaas aysan ku xiiqin. dhinaca dadka Falastiiniyiinta ama iska caabinta Falastiiniyiinta haddii aynu eegno, run ahaantii ka bixitaanka ciidamada Israa'iil waxay u arkaan inay tahay guul siyaasadeed iyo mid awoodeed, sidaasi oo kalena
ka bixitaanka ciidamada Israa'iil waxay u arkaan nafis bini'aadanimo maadaama Israa'iil magaalada Gaza habeen iyo maalinba duqeyn ay ka waday sidaasi oo kalena dadka gaajaysiinaysay yacni dadkan ay ku dilaysay rasaas iyo gaajo marka sidaas darteed waxay u arkaan nafis bini'aadanimo oo dadka gurmad ay ku heli karaan sidaasi oo kalena yacni Israa'iil ka bixitaankooda magaaladan Gaza qaybo badan oo kamid ah waxay u dhigantaa yacni maantaba ay u arkaan in laga guuleystay dhanka kale sidaan barnaamijka bilowgiisa idinkugu sheegay waxaa soo baxaysa Israa'iil inay wax ka bedeshay liiskii iska caabinta Falastiiniyiinta ee laga codsaday inay sii deyso gaar ahaan 250 qof ee ku xukunaa xabsiyada aadka u adag isku dhac aad u weyn ayaa hadda waxa uu u dhaxeeya ayaa leeyahay wasaaradda amniga gumaystaha Israa'iil iyo shacabka Israa'iil qaarkood ku andacoonaya in dadkaasi caruurtooda ay dileen dadkan xiran iska caabinta Falastiiniyiinta maxkamadda sare Israa'iil waxay diiday dhammaan racfaanada la soo gudbiyay ee la doonayo in yani dadkaasi in xabsiga laga sii daayo la diido laakiin maxkamadda sare Israa'iil waxay sheegtay in arinta ay tahay go'aan siyaasadeed oo gumaystaha Israa'iil dowladooda ay u gaar tahay maadaama xukuumadda Oofarka Netanyahu ay go'aan ay ku gaareen maadaama cadaadis uu kaga imaanayo dhanka Mareykanka reer galbeedka in dadkaasi la sii daayo haddaba sidaan la socono iska caabinta Falastiiniyiinta magacyadii ay gudbiyeen waxaa ku jiray Marwan Barquti Ahmed Saadaat Hassan Salama iyo Abbas al-Sayed dhammaantood Israa'iil liisku ay ka saartay oo Israa'iil wasaaradooda amniga ayaa waxay sheegtay in arinkaasi ay suurtagal ahayn marka arinkaana run ahaantii waxay noqon doontaa qodob mar kale muran xoogan dhalin doona oo u dhaxeeya Israa'iil iyo iska caabinta Falastiiniyiinta guud ahaanba Israa'iil waa ay diiday inay sii deyso maxaabiistan asal ahaan guud ahaanba waa ay diiday waxay leedahay waxay yani lid ku yihiin amniga Israa'iil haddii xitaa dibad joog aynu ka dhigno waxay keenayaan qorshihii mar kale Israa'iil ee lagu waxyeeleyn lahaa marka run ahaantii Israa'iil waxay raadinaysaa marmarsiyo mar kale ay dagaalkan ay markaasi u bilaabi lahayd iyadoo ciidamada Israa'iil sida lagu ballamay in qaybo badan dhulkaas kamid ah isaga baxaan haddana la dareemayo ciidamadooda 53% magaalada Gaza ay ku sugan yihiin insha Allah wixii arimahan ka soo kordhana dib ayaan halkaan kaga soo gudbin doonaa biidnillah Dere Suites waa dhismo si casri ah loo dhisay Dere Suites waxaa ka heli kartaa apartment firaashan iyo kuwa firaaqa ah oo aad adiga alaabtaada soo dhigan karto sidaas oo kale qaar ka mid ah apartmentyadani waxay leeyihiin double master's room Dere Suites waxay awood u leedahay inaad iibsato ama aad kiraysato haddaba dadka iibsada ama kuwa kiraysanaya waxaa loogu talagalay adeegyo si lacag la'aan ay ku heli karaan sida cafe shop qolka shirarka meel caruurta ay kugu ciyaaraan oo ammaan ah mini theater qolka daabacaadaha qolka jimicsiga sauna ama xamaamka maqribiga CCTV camera ayaa guriga meel walba kaga xiran oo yaanan hilmaamin 2 baarkin oo waasica ayuu leeyahay dhismahani haddaba Dere Suites waa another level apartment wuxuuna ku yaalaa wadada Jayga Airportka ama dhabarka dambe ee Turkish Maarif School Exbol Technico wixii faahfaahinay dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarka WhatsApp-ka shaashada kaaga soo muuqanaya